saaxiibeel waan idin salaamaya waqtiga idin wanaagsanaado. Waxaa jirtay muuqaal aan soo dhigay saacado ka hor kaas oo hadalhayn badan ka dhaliyay bulshada Soomaalida, oo dad badani ay su'aalo iska weydiiyeen, taasoo markaasi ahayd in bulshada Soomaalida kale dadka ajaanibtaaba in guud ahaan la doonayo in wadankani Turkiga xoogay sharciyada lagu adkeeyo, wixii baxayana ay baxaan markaasi oo ay soo haraan in markaasi nadiif ah waa sida ay dowladda dalka Turkiga rabtay. Waxaa jirta warar kala duwan oo arrintaasi dhigaya dhalinyaro iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo nala soo xiriiray ama komentiyada nagu soo weydiinay sida komentiyadan aad arkaysaan oo kale ayaa waxay qaarkood ka hadlayaan arrinta waxbarashada, caafimaadka iyo sidoo kale dalxiiska. Haddaba qodobka ugu muhiimsan aan ka hadli rabay waxaa weeye arrinta la xiriidha gobolada guud ahaanba la madnuucayo July bisha 1 soo socota. Ayaan halkan warbixin ama xog dhammaystiran ku siin doona anigoo markaasi xooga saari doona magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin ay sidoo kalena sharciyada ka qaataan, kuwaas oo ah magaalooyinka Ankara, Istanbul iyo sidoo kale Izmir iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaalida oo waxbarashada dalkan u jooga ay joogaan deegaamo kala duwan sida Samsun oo kale, sidoo kale Konya. Anagoo inta badan ciidii u baahana waxaan sameyn doonaa inaan oo qofkii doonay inuu intaas in ka badan uu sii fahmo, iyadoo xogtani PDF ah waxaan markaasi dhigi doonaa Telegramka, markaasi daawasho wanaagsan deegaamadan iyo sidoo kale magaalooyinka gebi ahaanba laga madnuuci doono bishan soo socota, guud ahaan in lagu qaato wax sharciya ama deganaansho. saaxiibeel intaanan barnaamijka bilaabin waxaan idinka codsanayaa xoogay TikTok-tii hore cilad farsamo ku timi oo la xiriidha qolada TikTok-ta iskale inay gebi ahaanba hawada ka saartay, ma garanay sababta, inkastoo xoogay sharciyada iyaga u degsan haddii aad ku xadgudubtay ay hawada kaa dhufanayaan. Waxaan idinka codsanayaa inaad halkan copy linki aad samaysaan oo aad copyga linkiga asxaabtaada gaarsiisaan si ay u helaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo sidoo kale Soomaalida Turkiga ku nool. Warar muhiim ah ayaan halkan aan ku baahinaa, waana ku mahadsantihiin. Magaalooyin aad u badan ayaa jira oo markaasi dalkan Turkiga, balse anagoo muhiimada saarayna bal deegaamada ay Soomaalidu ku badan yihiin ama magaalooyinka waxaa kamid ah magaalooyinka ay Soomaalidu aad ku badan yihiin inay degaan waa Ankara iyo sidoo kale Istanbul, sidoo kale dhalinyarada Soomaalida iyaguna Izmir ku sugan. Waxaa jira kuwa waxbarasho, marka kuwa waxbarashada xoogay inkastoo ay iyagu yihiin kuwa ciqaamadoodu ay isdul saar yihiin oo qofkii si sax wax u baranaya uusan arrintan aan ka hadalno oo aysan qusayn, maadaama dadka waxbarashada dalkan u jooga ay 4 sano ama 5 sano ama 6 sano ay joogaan waxbarashadoodu ay tahay mid toos ah oo qofku ciqaamadiisa helayo. Arrinta hadan kaga gudubno waxaa jira gobolada fara badan oo meeshan ku jira, balse waxaanu inta badan xooga saari doonaa gobolada kale ah Ankara, Istanbul, Izmir iyo sidoo kale deegaamo kale oo aan soo raacan karno. Halkan xoogay mid ayaynu ka fahmi karnaa oo haddii aan bulshada Soomaaliyeed in dadka la ugaadhsanayo ama la doonayo in dalkan laga sifeeyo ay tahay dadka Suuriyaanka. Gobol la yiraahdo Gaziantep oo markaasi dalkan Turkiga oo ay ku badan yihiin dadka Suuriyaanka ee qaxoontiga ayaa waxa ku jira ilaa 20 xaafadood oo markaasi aad ka dareemayso in aan lagu qaadan karin wax sharciya. Marka gobolkan oo kale waa gobol ay ku badan yihiin Suuriyaanta timaada dalkan Turkiga kuwooda ugu badan, oo waxaad dareemaysaa in guud ahaanba ay halkaasi tahay meel lagu hoobtay oo dad aad u fara badan oo ay ciqaamadaha ku waay karayaan. Waa gobol gooniya. Marka gobolkana Soomaalida intaan ka warhayo dad taga mooyaane ma degaan inta badan. Gobolkaas aad ugu fara badan iyo sidoo kale Istanbul iyaga xaafado gaar ay jiraan. Marka isagoo PDF ah ayaan saaxiibayaan oo lagama wada gayoon karo, waxay noqonaysaa barnaamij aad u dheer. Waxaan soo dhigi doonaa insha Allah haddii kale page-kayga ama sidoo kale Telegramka oo kale aan ku qori doono magaca gooniya. Waa mahadsantihiin saaxiib, cidii nambarkayga haysana way la soo xiriiraysaa si aan ugu diro ay u fiiriso haddii ay ciqaamada ku qaadanayso gobollo gaar ah si ay uga fiiriso. Tusaale kale u soo qaadan oo kale magaalooyinkan laga qaadan karin waxaa kamid ah Istanbul oo kale haddii aan fiirino waa Istanbul gudaheeda waxaa laga qaadan karin ilaa 12 xaafadood ilaa 12 xaafadood oo kala duwan sida ka arkaysaan sawiradan iyo sidoo kale videogan. Inta badan haddii ay kugu adkaato inaad aragtid oo kale waxaan soo dhigi doonaa Telegramka oo si aad halkaasi uga fiirisaan. Izmirna qudhay waa meelahaas ilaa 7 xaafadood oo kala duwan. Waxaa jirtay sidoo kale deegaamo kale Ankara oo kale waa dhowr xaafadood oo ma badna. Kajoran oo kale xaafadaha noocyada Kajoran oo dadka ajaanibta sida Soomaalida oo kale ay ku badan yihiin kuma badna, balse intaan arkay xaafadaha ay Soomaalida xoogay degto Aldinto oo kale kamid ah waa Ankara weeye. Ankara aad uma badna oo waxaa ka badan Istanbul oo kale. Sidoo kale Konya ayaa ku jirta, sidoo kale Samsunna aad uma badna.
waa deegamo aada u fara badan sidaad halkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warbixintii koobneyd aan ku eeganay qaabka iqaamadaha magaalooyinka aan loogu qaadan karin. wixii su-aala halkan ayaad commentiga hoose noogu reebi doontaa, annagoo markaas xooga saari doono bal inaan sida ugu macquulsan aan uga soo jawaabno. waa mahadsantiin dhammaantiin, guul baan idin rajayn. dalkana Turkiga isbedelo kala duwan ayaa ka dhacay. waxaan rajaynaya inuusan saameyn idinku yeelan, oo saameyntaas oon ka hadalnano ay tahay mid dhibaato ku taxalluuqda ama la xidhiidha. waana ku mahadsantihiin. waxaan rajaynaya inaad halkan wararka la xidhiidhi doontaan. sii shargaree soomaalida kalena gaadhsiiya. waa ku mahadsantihiin daawadeen.